iyadoo muddooyinka u dambeeyay oo guud ahaanba Soomaaliland ka daayay roobka gugu ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Burco waxa ka daayay roob weyn oo mahiigaan ah. Roobkan oo muddo 8 saacadood ka daayay magaaladaasi waxa uu sababay dhimasho hal qof iyo sidoo kalena roobkani waxa uu dumiyay isla markaana jiingadaha kala digay guryo tiro badan oo ku yaala magaaladaasi. roobkan ayaa sidoo kale hakad geliyay isku socodka dadka, gaadiidka iyo guud ahaanba ganacsiga magaaladaasi. gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi walaalayo telefishinka Saab la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu geystay roobkan oo isugu jiray mid nafeed iyo sidoo kale mid hantiyeed. xalay markay ahayd saacadu ilaa 2 iyo xoogay ayaa runtii roob weyn oo consecutive oo ilaa saaka 9kii hayay ama 9kii iyo barkii meelaha hayay magaalada Burco uu da'ay. roobkaasi muddo aad iyo aad u fara badan ayuu hayay. waxaa ka horeysay waqtiga afurada wax yar ka hor inuu isagu da'ay roobkaas oo runtii calay dhahaa waxa uu sameeyay meelo badan buu wuxuu ka qaaday maaragtay jiingadii buu ka qaaday oo guryo fara badan buu jiingadii ka qaaday. roobkan dambe ee bilaabmay 2 iyo barkii habeenimo sida runtu tahay waqtiga uu inahayay fara badan leh iyo sida khasaarihiisu uu yahay aad iyo aad bay u kala fog yihiin. ilaa hadda intaan ognay waxa jira aan warkiisa haynaa inuu nin ku dumay gurigiisu guri u dhow xarunta gobolka Togdheer xafiiskeeda u dhow. ninka waa dhintay Ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo ehelkiisiina samiri iimaan Ilaahay ka siiyo. runtii waxa jira sida ogtiin bar roobkii ka horeeyay wuxuu soo dumiyay mooskii magaalada biyaha ka celinayay. runtii mooskaas oo wax weeyaan biyaha badankooda ka dhaafeed gareyn jiray ama ka duwi jiray magaalada. arrintaas waxay sababtay in daadkii siduu u xamaysan yahay uu magaaladii soo galo. roobkii horena waa ogeydeen dee waxyaabaha u geystay khasaaraha inkastoo khasaare nafeed aanay jirin. kanna sidii kale waxaa jira guryo fara badan oo ka mid ah magaalada Burco oo waxa weeyaan daadkii uu galay wixii dhex yaalayna runtii waxyeeleeyay xaafadaha ugu badan ee roobkani waxyeeleeyay waxaa ka mid ah xaafadaha Hodan oo kale wadadan weyn ee qabata hawdka qabata halkii lagu talagalay in laamiga laga sameeyo xaafadan la yiraahdo Qunyar Dega runtii xaafada Saylada runtii xaafado badan oo magaalada ka mid ah ayaa dadkii waxa weeyaan guryahoodii roobku uu galay dabadeedna arrintaas waxay sababtay in wixii hanti ay dhex taalay daadku uu qaato. haddana waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad baan ugu naqaynaa muddada roobkaasi inuu hayay iyo sida aanu waxyeelo maaragtay maanta nafeed ninka dhintay mooyaane aanu geysanin. insha Allah biidnillaahi baari waxaanu halkan ka sheegayaa oo dadweynaha reer Burco uga sheegayaa in aan diranay qayladhaan aan u diranay maaragtay dowladda dhexe ilaa madaxweynaha oo qayladhaantii laga soo jawaabay oo la inoo soo diray runtii cagaf baldoosara oo aynu ku bilaabi doono insha Allah sida ugu dhasaha badan leh inaan horta mooski aynu ku moosno. gudoomiyaha Xamse Maxamed Cabdi oo hadalkiisa sii wato waxa uu fariin u diray shacabweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco. runtii waxaan jecelahay halkan inaan uga diro fariin dadweynaha ku nool guud ahaan gobolka Togdheer fariintaas oo ku wajahan in waqtiyada roobka ay dadku aad iyo aad uga fiijignaadaan waliba runtii dadka degan meelaha biyo fadhiisiga ah ay aad iyo aad maaragtay ay uga taxadiraan roobkan oo runtii gobolka Togdheer meelo badan oo kamid ah oo haddan oo dambeysay la soo sheegayo inuu maaragtay deegaamada xuduudka ee gobolka uu aad iyo aad maaragtay uga daayay meelo kale oo fara badan oo degmooyin kale oo fara badan oo gobolkaana uu ka daayay. waana wax weeyaan inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu mahadnaqno waa ogeydeen abaartiina soo martay kaliishii dheereedayna soo martay dhibaatada ay nagu haysay. waxa weeyaan waxaan oran karnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu naga aqbalay roob doonteeni iyo alla barigeeni iyo waxa weeyaan baryadii iyo isu dhuligi aynu Ilaahay isu dhulignay ayuu Ilaahay inaga aqbalay. Shaakir Cabdi Axmed iyo Maxamed Xiiray Saab TV Burco.